software defined networking waa technology aad iyo aad shaqada ugu fududeysay network administratorska sababtoo ah waxay fududeysaba waxay tahay sida loo maamuli lahaa network meesha inta router kasta ama switch kasta inta la kortago configuration asaga lagu sameyn lahaa ayaa waxaa la sameynayaaba waxay tahay in maskaxda network hal meel laga maamulo aysan routerisku aysan go'aan qaadan sida datada ay u dhex marayso network sababtoo ah haddii hadirtan caadiyan la yiraahdo software defined networking lama isticmaalayo oo waxa la isticmaalayaa waxay tahay sidii hore la isticmaali jiray oo routeriska configurationka lagu sameynayay waxa dhacaysa waxay tahay in horta lagu celceliyo hal shaqo la qaban lahaa in lagu celceliyo oo router kasta goonidiisa configuration lagu sameeyo command line ka inta la tago CLI-ga configurationkaas lagu sameeyo routerkaas marka wuxuu qabanayaa waxay tahay laba shaqo maskaxdiina uu noqonayo datadiina waa gudbinaya marka waa physical device-kii oo noqonaya oo la taaba karay iyo device-kii maskaxda network ahaayo go'aanka u qaadanayay balse markii software defined networking ay timid maskaxdii iyo waxa la kala saaraba waxay tahay waxa la kala soocay maskaxdii iyo meeshii datada ay ku gudbi lahayd marka maskaxda ayaa configurationka laga sameynaya configurationkaas ayaa waxay u soo gudbinaysaa routeriska ama switcheska kadib ayay sidaas ay gudbinaysaa